kadib markii ay soo baxday warka sheegaya in dowladda Masar ay Soomaaliya ugu deeqday hub fara badan isla markaasina hubkaas uu soo gaaray caasimadda dalka ee Muqdisho oo sida aynu wararkeennii hore ku sheegnay hubkaasi hadda ay socoto dejintiisa rarista hubka iyo sidii loo geyn lahaa goobihii hubkan loogu talagalay ayaa dhinaca kale waxaa iyaduna soo baxaysa falcelinta hubkaasi ay ka sameeyeen dhinacyada ay xaaladani saamaynta ku leedahay oo ah saddex geesoodka Soomaaliya, Masar iyo Itoobiya. Saddexdan waddan ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey hubkan Soomaaliya loogu deeqay. Aan ku bilowno dhinaca hubkan loogu deeqay oo ah dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si buuxda uga hadashay hubkan ay ugu deeqday dowladda ay saaxiibka yihiin ee dalka Masar, waxaana ay soo dhaweeyeen hubkan. Ugu horreyn waxaa arrintan ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Wasiirka ayaa wuxuu sheegay Soomaaliya waxay ka gudubtay marxaladdii la dhihi jiray ciddaad la mucaamilayso waa inaan annagu raalli ka nahay, danteenna annagaa naqaana, ayuu wasiirku yidhi. Sokeeyaheenna iyo shisheeyaheenna annagaa kala xulanayna. Taas oo markan uu macnaheedu yahay waxaanu ka gudubnay xilligii ay Itoobiya wax noo yeelin jirtay. Wasiirku wuxuu leeyahay waxaanu helnay walaal iyo sokeeye daacad ah oo hiil iyo hooba nala garab taagan. Taas waxay ahayd jawaabta ay dowladda federaalka Soomaaliya ama falcelinta ay ka samaysay hubkan ay ugu deeqday dowladda Masar. Dhinaca kale isla Soomaaliya mas-uul ka tirsan ayaa isaguna ka hadlay hubkan ay dowladda Masar ugu deeqday dalkiisa. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Cali Balcad ayaa isaguna yidhi waxaa la yaab leh inaan aragno Itoobiya oo walaac ka muujinaysa inay Soomaaliya hesho hub si ay ku difaacdo qarannimadeeda ugana hortagto argagixisada, iyadoo Itoobiya ay dhinaceeda waddo inay hubayso kooxo ama dowlad goboleedyo ka jira dalka Soomaaliya, kuwaas oo wiiqaya xasiloonida iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya, ayuu yidhi wasiir Cali Balcad. Arrintan oo iyadana loo fasiranayo in wasiirku markaasi leeyahay haddii ay Itoobiya dhinacyada naga soo horjeeda iyaduna dhinaceeda ay hub siinayso, annaguna xaq ayaanu u leenahay dalka aanu saaxiibka nahay in markaas ayaguna hubna siiyaan. Tan oo markaa macnaheeda dhabta ahi uu yahay in cidda la isu hubaynayo ay tahay isla Soomaalida dhexdeeda, sida wasiirkuba uu hadalkiisa ku xusay. dhinaca kale dalka hubkan uu saamaynta ku leeyahay isla markaana walaaca weyn ka qaba inuu saamayn amnigeeda ah ku yeesho ayaa iyaguna ka falceliyey hubkan ay dowladda Masar ugu deeqday dalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa isaguna shaaca ka qaaday in xoogagga shisheeye ee hubka soo gelinaya dalka Soomaaliya uu halis iyo khatar ku yahay amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Taye Ataske Salaasi ayaa oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ayaa tibaaxay in hubkani uu keeni doono in xaaladda ammaanka ee Soomaaliya oo markii horeba liidatay ay hadda faraha ka baxdo. Wuxuu intaas wasiirku ku daray in hubku uu geli karo gacmaha kooxaha argagixisada ah ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Wasiirku wuxuu si gaar ah una u xusin cidda Soomaaliya hubka soo gelinaysa, balse waxaa hadalkiisa loo fasiran karaa ujeeddadu inay tahay dalka Masar. Waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay dhowaan iyaduna ku eedaysay Itoobiya inay si aan sharci ahayn Soomaaliya u soo gelisay hub.
wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisu sii wadi doono la dagaalanka argagixisada. waxa kale oo uu tibaaxay in qorshe kasta oo lagu beddelayo ciidamada ATMIS uu noqdo mid laga baaraan degay, gaar ahaan baaxadda maalgelinta iyo isku dubaridka ciidankaas, taas oo iyadana uu macnaheedu yahay inaan lagu degdegin ciidankaas iyo cidda ka qayb galaysa iyo baaxadda uu leeyahay, oo ay Itoobiya markaas uga jeedo in markaas howlgalka lama huraanka howlgalka nabadda ee Soomaaliya iyadu udub dhexaad u tahay, sidaas darteedna ay waajib tahay talada howlgalkaas iyo ka qaybgalkiisaba inay Itoobiya kaalin weyn ku yeelato. dhinaca kale, Soomaaliya oo culayska saaraysa inay hub fara badan hesho ayaa dhinaca kale ay dowladdu qorshaynaysaa inay hubka dhigis ku samayso deegaanada ay ka taliso. madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa amarkan si toos ah u bixiyey mar uu jeedinayey khudbaddii Jimcaha. madaxweynuhu wuxuu mamnuucay ka ganacsiga iyo kaydinta hubka noocyadiisa kala duwan, iyo in xildhibaanada iyo mas-uuliyiintu ay haystaan hub ay amnigooda ku difaacayaan. madaxweynuhu wuxuu sheegay xildhibaan ama mas-uul kasta oo ay ku caddaato in uu hub haysto in aanu xasaanad iyo sharaf midna lahayn, oo guryahooda loogu daadan doono oo laga soo xidhi doono. balse waxa xusid mudan in go'aanka madaxweynaha ay ka soo hor jeesteen oo ay gebi ahaanba diideen xildhibaano, mas-uuliyiin, odayaal, ganacsato ku sugan deegaanada ay dowladdu ka taliso, waxaana lagu jahawareersan yahay sida ay dowladdu isu waafajin doonto in ay dowladdu hub fara badan la soo degto, oo weliba qaybo hubkaas ka mid ah ay ugu deeqdo maleeshiyaadka macawisleyda, hogaamiyaasha qabiilada, musharaxiinta iyo maamul goboleedyada ay dowladda isku xulufada yihiin, iyada oo isla dowladdu ay markaasi isla dhinaca kale hubka dhigis ku samayn doonto xildhibaanada, mas-uuliyiinta, ganacsatada iyo hogaamiyaal qabiil oo dowladda ka soo horjeeda. dhinaca kale, wararka soo baxaya ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay qorshaynayso awooddeeda iyo hubkan cusub ee hadda ay heshay inay ku tijaabiso amase cududdeeda ay u adeegsato maamul goboleedka koonfur galbeed. si gaar ahaaneed, wararku waxay sheegayaan dowladdu inay hadda culayska saarayso gobolka Shabeellada Hoose. warbixintan ama warkan oo aan hore idinku soo gudbinay ayaa marba marka ka dambaysa isu soo taraya. qorshaha dowladda ay damacsan tahay ayaa ah in marka hore ay dowladdu howlgal ka bilaabi doonto gobolka Shabeellada Hoose. howlgalkan oo loogu magac dari doono ka nadiifinta argagixisada iyo isbaarooyinka gobolka Shabeellada Hoose iyo isku furidda dalka, siiba caasimadda dalka iyo guud ahaan degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose oo ay ka mid tahay caasimadda maamul goboleedka ee Barawe. wararku waxay sheegayaan in dowladdu hadda ay culayska saarayso sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd ee awoodda hub ee ay hadda heshay iyo ciidanka ay haysato ay ugu adeegsan lahayd sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd guud ahaan gobolka Shabeellada Hoose iyo caasimadda rasmiga ah ee koonfur galbeed oo ah Barawe. dowladda ayaa waxay aaminsan tahay tani inay ka caawin doonto in halkaasi haddii uu maamul goboleedka koonfur galbeed madaxweynaheedu ka dhaga adaygo inuu doorasho qabto amase uu u hoggaansamo awaamirta dowladda federaalka Soomaaliya, in dowladda iyo dhinaca kale golaha samata bixinta koonfur galbeed oo iskaashanaya ay caasimadda maamul goboleedka koonfur galbeed ee Barawe ay ku qabtaan doorasho ay dowladdu hoggaaminayso. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay aaminsan tahay istaraatiijiyad ahaan halka ay ku loolami doonaan
Itoobiya iyo Soomaaliya oo hadda uu khilaaf adag ka dhaxeeyo inay tahay maamulka koonfur galbeed. waxaana xusid mudan Itoobiya saldhigyadeeda ugu waaweyn iyo maamul goboleedka markaasi rasmiga ah ee joogitaankeeda uu si buuxda uga muuqdo, isla markaana ay xiriir dhow leeyihiin inuu yahay maamul goboleedka koonfur galbeed ee uu hadda hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis maxamed laftagare. dowladda federaalka oo taas ka duulaysa ayaa damacsan guud ahaanba koonfur galbeed inay ka faramaroojiso joogitaanka iyo saamaynta ay Itoobiya ku leedahay. si haddaba dowladdu ay damaceedaas u dhaqan geliso, waxa ay damacsan tahay marka horeba inay guula ka gaadhaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen goobaha ugu muhiimsan ee koonfur galbeed, si gaar ah caasimadda Baraawe oo hadda siyaasad ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale, isla maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna u arkaa halista ugu khatarsan ee soo wajihi karta inay kaga iman doonto dhinacaas iyo shabeellada hoose, iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo isku dayi doonta inay gacanta ku dhigto guud ahaan gobolka shabeellada hoose oo ay ka mid tahay caasimadda maamul goboleedka koonfur galbeed ee rasmiga ah ee Baraawe. isla maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna waxay culayska saari doonaan sidii ay u adkayn lahaayeen gacan ku haynta gobolka shabeellada hoose iyo caasimadda Baraawe oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee u daacadda ah madaxweyne cabdicasiis maxamed laftagare. khatarta ugu weyn tijaabada hadda hubkan cusub la tijaabin doono iyo cududda ay dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay, iyo dhinaca kale Itoobiya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed oo iskaashanaya ayaa iyaga dhammaantood waxaa iska horimaadkooda iyo loolankooda siyaasadeed iyo midka militariba uu hadda ku wajahan yahay gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed. xaaladahan ayaa iyadana waxaa sii xoojinaysa dhaqdhaqaaqyada hubka ay Masar ku soo daldalayso Soomaaliya, iyo isla dowladda Masar oo isu diyaarinaysa haddiiba dowladda Soomaaliya iyo ciidankeedu ay ku guulaystaan inay gacanta ku dhigaan xarumaha ugu muhiimsan ee gobolka shabeellada hoose, in isla dowladda Masar ay damacsan tahay in deegaanadaas ay ka dhigato fariisinadeeda amase saldhigyada ay Masar ka doonayso inay Soomaaliya ku yeelato. xaaladahan colaadeed ayaa hadda loo badinayaa inay soo dedejiyeen in Masar ay gudaha dalka Soomaaliya ku soo daadgurayso hub fara badan si la isugu diyaariyo xiisadaha colaadeed iyo loolanka soo wajahay. dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaa iyadana mar kale ku celisay mowqifkeeda rasmiga ah iyo sida ay dowladda Itoobiya aaminsan tahay in xal loogu heli karo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyo guud ahaan xasiloonida geeska Afrika. taliyaha sare ee ciidanka Itoobiya ayaa mar kale ku celiyey in xasiloonida iyo deganaanshaha geeska Afrika uu ku xidhan yahay inay Itoobiya hesho marin badeed ay iyagu maamulaan. markan taliyuhu wuxuu si cad oo aan madmadow lahayn u qeexay rabitaanka Itoobiya inaanu ku koobnayn inay marin badeed hesho, balse ay tahay Itoobiya inay hesho marin badeed ay iyadu si buuxda u maamusho. si markaasi loo helo buu yidhi, Itoobiya iyo dadkeeda oo marba marka ka dambaysa tirada iyo tayadoodu ay sii kordhayso ay u helaan marin badeed ay si xor ah u maamulaan oo ay u adeegsadaan. hadalkan taliyaha ayaa isagana wuxuu sii xoojinayaa aragtidii ama qadiyadii ay miiska soo saartay Itoobiya wareeggii labaad ee wadahadallada Soomaaliya iyo Itoobiya. ergadii Itoobiya ee ka qayb gashay wejigii labaad ee wadahadalka ayaa sidan oo kale uu taliyuhu sheegay u soo bandhigay in xasiloonida, deganaanshaha, nabadgelyada iyo heshiiska geeska Afrika uu ku xidhan yahay inay Itoobiya hesho marin badeed ay iyadu si xor ah u maamusho. waxa kale oo warar laga soo xigtay diblomaasiyiinta Itoobiya ay sheegeen in qorshihii ay u soo bandhigtay Djibouti ay qayb ahaan Itoobiya qaadatay, balse mar kasta ay Itoobiya ku adkaysanayso marin badeedka ay u baahan tahay inuu yahay marin badeed Itoobiya ay doonayso inay iyadu si buuxda u maamusho.
oo dhammaystiran. waxaan la soconnaa in wadahadalladii u dhexeeyey Ethiopia iyo Soomaaliya hadda ay meel cakiran marayaan. dhinaca kale waxaa iyaduna socda dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed iyo isxulufaysi dhinacyada iska soo horjeeda ee la filayo inay geeska Afrika isku hardiyi doonaan. dhinacyadan ayaa waxaa ka mid ah Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya oo isku dhinaca, iyo dhinaca kale urur goboleedka IGAD, midowda Afrika, Ethiopia oo iyagana aakhirka la filayo inay isku dhinac noqon doonaan. sababtoo ah isbahaysigan cusub ayaa wuxuu khatar gelin doonaa isku xidhnaantii IGAD iyo geeska Afrika xasiloonidii ka jirta. dad badan lama socdaan isbahaysiga u dhexeeya Masar iyo Eritrea iyo saamaynta uu ku lahaa geeska Afrika waqtiyadii hore iyo hadda. dadka hadda ku soo baraarugay loolanka iyo khilaafka ka jira geeska Afrika waxay iska aaminsan yihiin in xaaladani hadda ay bilaabatay oo Ethiopia iyo Masar xulufanimadoodu ay ka bilaabatay khilaafkan hadda u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. balse xaqiiqada dhabta ah taasi ma aha. waxaan halkan idinkula socodsiinaynaa oo aynu hoosta ka xariiqaynaa oo ay og yihiin dadka u dhuun daloola siyaasadda geeska Afrika in Masar iyo Eritrea mar sii horreysay ay isku dayeen inay xulufadoodu awood iyo saamayn culus ku yeeshaan geeska Afrika. Eritrea ayaa iyadu xiriir fiican aan la lahayn ilaa iyo hadda dowladaha geeska Afrika tan iyo intii ay xorriyadda qaadatay. dowladahan oo ay ka mid yihiin Ethiopia oo ay Eritrea ka xorowday, iyo Uganda iyo Kenya had iyo jeer waa isku xulufo iyo isku istaraatiijiyad marka la fiiriyo damacooda geeska Afrika. waxaa iyaduna ku jirta dalka Djibouti oo ay Eritrea horay duulaan ugu qaaday. saddexdaas dowladood oo kala ah Djibouti, Uganda iyo Kenya iyo dalka Ethiopia oo ay Eritrea xorriyaddeeda ka qaadatay isla markaasina ah asaasayaashii urur goboleedka IGAD waxay ka midaysan yihiin inay ka hortagaan damaca Eritrea ee geeska Afrika. iyadoo Eritrea taas og oo ka duulaysa waxay xulufo ka dhigatay waqtiyadii bilowga loolankan dalka Masar. balse qorshahaasi ma guulaysanin sababtoo ah awoodda iyo saamaynta ugu weyn ee geeska Afrika waqtigaas waxaa lahayd dowladda Ethiopia oo ay xukumi jirtay ururkii TPLF oo saamayn iyo awood badan ku yeeshay geeska Afrika. dhinaca kale Eritrea oo markaasi ay wadannada waaweyn ee reer galbeedka ugu horreeyaan ay isha ku hayeen waxay u arkeen dal khatar ku ah nabadgelyada geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. waxaa xusid mudan in qaramada midoobay ay cunaqabatay ku soo rogeen dalka Eritrea iyadoo Eritrea loo arkayay dal qaswade ka ah geeska Afrika. Masar ayaa markan ku guuldarraysatay inay badbaadiso saaxiibkeedii geeska Afrika, waxaana Masar ay ogaatay inayna saamayn badan ku yeelan karin geeska Afrika. Eritrea waxaa laga go'doomiyey urur goboleedka IGAD iyo guud ahaan siyaasadda geeska Afrika. shirarkii u dambeeyey ee ururka IGAD qayb kama ahayn, wayna ka baxday Eritrea ururka. balse isbeddelkii labaad ee Ethiopia ka dhacay, TPLF oo xukunka laga tuuray, ayaa keentay inay isku soo dhowaadaan Eritrea iyo Ethiopia. tan oo Eritrea markan ay fursad iyo marin u heshay in markaasi ay siyaasaddii urur goboleedka IGAD iyo saaxiibadii Ethiopia iyo beesha caalamkaba ay saamayn hor leh ku yeelato. saaxiibtinimada Abiy Ahmed iyo Isayaas Afwerki ayaa heerkii ugu sarreeyey gaadhay, taas oo keentay in labada dalba culays ka haystay dhinaca geeska Afrika ay ka dhacdo. Abiy Ahmed oo markaas u baahnaa saaxiibtinimada Eritrea iyo Eritrea oo u baahnayd saaxiibtinimada Abiy Ahmed iyo Ethiopia oo isku guuraya ayaa heshiiskan gaaray. balse hadda waxay muuqataa in waqtigaasi uu soo gebagaboobay. mar labaad Eritrea waxay u helashay dhinacaas iyo dalka Masar iyo inay taageerto isla kooxo ka soo horjeeda Ethiopia. Ethiopia oo taas isha ku haysa ayaa iyaduna markan sii xoojinaysa xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay IGAD iyo inay isu muujiso inay tahay dowlad quyar socda nabad raadinaysa, balse baahideedu ay tahay inay marinbadeed helaan. waa loolan qarsoon biyaha hoosteeda la isugu jiro. dowladaha saaxiibada ah sidaynu hore u soo sheegnay ee Djibouti, Ethiopia, Uganda iyo Kenya
marna ma aqbali doonaan mar kale in Eritrea iyo Masar ay saameyn weyn ku yeeshaan geeska Afrika, taas oo ay aaminsan yihiin inay dhaawac iyo dhulbaaxo culus ku noqon doonto guud ahaan ururka IGAD iyo midowda Afrika. Inkasta oo Masar iyo Eritrea ay ka mid yihiin ururweynaha midowda Afrika, balse haddana ka gobol ahaan ururka midowda Afrika waxay ka dambeeyaan dowladaha IGAD ee Ethiopia ay hormuudka u tahay, xarunta midowda Afrika ku taalo. Taasi marka waxay keenaysaa in xaaladani loolankeedu uu wajiyo badan uu geli doono. Waxaana xusid mudan hadda inay isbahaysi xooggan ay wadaan oo ay ku soo biirtay Eritrea iyo Masar dowladdii Soomaaliya. Isbahaysigii hadda uu xoogaystay. Waxay Masar iyo Eritrea oo horay ugu fashilmay inay awooddooda ku ballaariyaan geeska Afrika ay u arkaan inay hadda fursad weyn u tahay in Soomaaliya oo Ethiopia uu khilaaf ka dhexeeyo ay isbahaysigan ku soo biirto. Tan ayaa waxay u arkaan labadan hogaamiye guul weyn oo u soo hoyatay. Balse dhinaca kale saaxiibada gobolka ee dowladaha IGAD ayaa iyaguna waxay culays ka saarayaan in Soomaaliya laga soo reebo xulfadan ama isbahaysigan halista ku ah jiritaanka urur goboleedka IGAD. Dowladaha Djibouti oo ay colaadi ka dhaxayso Eritrea, Uganda iyo Kenya oo aan horey u sheegnay inay isku istaraatiijiyad maguurta leeyihiin dalka Ethiopia, dhammaantood waxay hadda culays ka saarayaan isbahaysigan inay ka soo reebaan dowladda Soomaaliya oo ay saaxiib yihiin. Saddexdan waddan ee Kenya iyo Uganda iyo Djibouti waxa ay saaxiibo dhow isku yihiin dowladda Soomaaliya. Sidaas darteed ma rabaan inay Soomaaliya ka raacdo dhinacaas ka soo horjeeda ee khatarta ku ah. Wejiga koowaad ee IGAD ay hadda khatartan kaga hortegayso ayaa ah in marka hore ay dhexdhexaadin iyo isku soo dhoweyn ka dhex abuuraan Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaan la soconnaa wafdi ka socda IGAD inay dhowaan tageen caasimadda dalka oo ay xambaarsan yihiin fariimo ah inay labadan dal dhexdhexaadiyaan oo xaaladdu ayna gaadhin in geeska Afrika ay ka dhex abuurmaan xulufo khatar ku ah jiritaanka dowladaha saaxiibka ah ee IGAD. Xogayaha ururka IGAD ayaa horey u sheegay in dadaalkaas ay wadaan. Waxaa dhinaca kale dadaalkan ay ka midaysan yihiin oo ay iska kaashanayaan urur goboleedka IGAD, dowladda Turkiga oo iyaduna dadaal xooggan wada oo dhinacyadan ay ku heshiisiinayso. Waxaa dhinaca kale iyaguna qorshaha dabada ka riixaya dowladda Maraykanka oo fariin u dirtay labada dhinac. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa iyaguna culays ka saaraya si howlgalka nabad ilaalinta dalka Soomaaliya ee hadda isbedeli doona uu u guulaysto in la helo ama xal loo helo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Dhammaan dhinacyadan waxay ka midaysan yihiin in xaalka la dejiyo. Balse dhinaca kale Eritrea iyo Masar taasi haba yaraatee wax dan ah uguma jirto. Labadan dal ayaa iyagu waxay qorsheynayaan in xaalka cirka ay ku shareeraan si ay danahooda siyaasadeed u gaadhaan, si ay u helaan saaxiib saddexaad oo xulufo la ah oo ah dalka Soomaaliya. Waa sababta keenaysa in hadda ay soo bateen shirarka iyo heshiisyada ay wada gelayaan saddexdan waddan oo ugu dambeeyey kulanka hadda ku dhex maray saddexda wasiir arrimo dibadeed ee Eritrea, Masar iyo Soomaaliya. Waxaa iyaguna jiray kulanne hore oo ay si gaargaar ah Masar iyo Eritrea ugu yeesheen caasimadaha Asmara iyo Qaahira, iyagoo ka wada hadlayay sidii isbahaysigan loo sii xoojin lahaa, Soomaaliya loo garab istaagi lahaa oo hiil iyo hooba loo siin lahaa. Tani oo labadan dal ay uga dan leeyihiin in aanay marnaba guulaysan dadaalada ay wadaan IGAD iyo dowladaha kale, balse iyaga qorshahooda gaarka ah ee geeska Afrika inay saameyn ku yeeshaan ay u guulaysato. Taas oo dowladahani ay u arkaan in markaas ay ku iman karto in khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia aan marnaba xal loo helin, xaaladuhuna ay isugu bedelaan khilaaf dhinaca gacanta laga wada hadlo. Ayaga dowladahan danu ma aha dadaalada diblomaasiyadeed ee socda. Waxay dareemayaan haddii ay dadaaladan guulaystaan oo saaxiibadii shalay la isku soo celiyo waa Ethiopia iyo Soomaaliya, in gebi ahaanba uu halkaas ku burburi doono damacoodii iyo qorshahooda cusub ee ah mar kale inay saameyn xooggan ku yeeshaan geeska Afrika. Loolan culus
oo siyaasadeed iyo military ayaa iyadana dhinacaas ka socda oo soo jireen ah, balse ma oga kooxaha cusub ee hadda siyaasadaha ku soo biiray xiisaddan qotada dheer halka ay salka ku hayso. xogahaas iyo wixii ka soo kordha iyo musalsalka hubka iyo Soomaaliya ee isaguna hadda meel cakiran maraya, iyo guud ahaan wararka Soomaaliya iyo geeska Afrika, halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa. La soco oo ku xidhnow warbaahinteena iyo baraha YouTube-ka ee warbaahinta wararka.